aynu ku horeynay wararka ka imanaya magaalada Walaweyn ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo iska soo horjeeda oo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo. Iskoorimaadka ka dhacay degmada Walaweyn ayaa u dhaxeeyay ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ama booliska gaarka iyo ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaan oo ka yimid magaalada Muqdisho kuwaasi oo la sheegay inay jidgooyo ama bar control oo lacag lagu qaado dhigteen bartamaha magaalada Walaweyn. Inta la ogyahay waxa ku geeriyooday 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada dagaalamay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walaweyn Yuusuf Cali Buule oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in dagaalku uu ka bilowday kadib markii ciidamada ilaalada wadooyinka ama taraafikada oo bar control dhigtay bartamaha magaalada Walaweyn ay tacshirad ku fureen gaari ay saarnaayeen ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed ama daraawiishta. Askartii daraawiishta Koonfur Galbeed ka tirsan oo gaari ay saarnaayeen 5 oo ah ay meesha marayaan laba dul tagay dawmiinta hore loo yaqaan Baasiyaanka. maxaa baabuurkooda la isla waa gartay meeqa ka dhimantay markaas ka daraawiishta waxa ka dhintay 2 way dhinteen 3 way dhaawacmeen waxay kuleen halkaas markay ay kadib waxa la isku dayay in la soo qaado waxay tahay u imaan karto ama qaali karto toona ma jirto marka dagaalkeedu meesha ku sii lama kacleeyay meesha ku sii qarxay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Walaweyn wuxuu kaloo xusay inay wadaan dadaalo lagu dhaxgalayo ciidamada dagaalamay. حبت تصوصنا وما يستاهل حبت قصة دعيت لكن أنا وأصدقائنا كان كخوجين لهن أما كدجين لهن أما كدحجل لهن. حالة دقمة Walaweyn ayaa hadda degan inkastoo mararka qaar degmadaasi laga maqlayo rasaas goosgoosa sida ay goobjoogayaal degmada Walaweyn ku sugan noo xaqiijiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo.